kulanti wanaagsan daawadayaal halkaas aad naga daawanaysaan waa janalka warqaa TV war degdeg ah oo iminka ina soo gaaray ayaan idiin soo gudbinaynaa sida aad ku daawateen wararka nisaaka waxaan soo baahinay in xildhibaanada golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya ay markaasi qorsheynayaan inay xilka ka xayuubiyaan xukuumadda ra'iisul wasaare Xasan Cali Khayre oo aad culus loo soo jeediyay hadda baarlamaanka Soomaaliya ayaa kulan degdeg ah yeeshay waxaana la sheegay in mooshin laga soo gudbiyay markaasi xukuumadda ra'iisul wasaare Xasan Cali Khayre waxaa la sheegay in xildhibaano ka badan 100 xildhibaan ay mooshin degdeg ah kusoo gudbiyeen xukuumadda ra'iisul wasaare Xasan Cali Khayre waxaana kulankii baarlamaanka maanta oo xildhibaano ku dhow 170 xildhibaan ay soo xaadireen waxaa la sheegay in xilkii looga xayuubiyey ra'iisul wasaaraha iyo xukuumaddiisa codka kalsoonidana lagala laabtay gudoomiyaha golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan oo kulanka shir gudoominayay goor dhowna natiijada ku dhawaaqay ayaa waxa uu sheegay in xildhibaanada golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya ay kalsoonidii kala laabteen ra'iisul wasaare Xasan Cali Khayre oo muddo ku dhow 4 sano ahaa ra'iisul wasaaraha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya isaga iyo xukuumaddiisa waxaa lagu eedeeyay in ra'iisul wasaaraha xukuumaddiisa ay ka soo bixi waayeen shaqooyinkii baarlamaanku u igmaday oo ay ugu horeyso dhammaystirka dastuurka sugidda amniga qaranka daadejinta nidaamka federaalka iyo dalka inuu gaarsiiyo doorasho qof iyo cod ah afartaasi shaqo oo ay baarlamaanku u dirsadeen 4 sano ka hor ama ku dhawaad 4 sano ka hor in markaasi xukuumaddiisu ay ka soo bixi weysay markuu arkay in xukuumadda ku fashilintay ballanqaadkii ahaa kow diyaarinta hanaan iyo qorshe cad oo lagu gaarayo doorasho qof iyo cod ah sanadku 2020 dhammaystirka federaaleynta xeerarka kala duwan iyo go'aanka qaadashada maqaamka caasimadda ka hor waqtiga doorashada afti qaadida iyo meelmarinta dastuurka iyadoo lala tashanayo labada gole ee dowlad goboleedyada iyo qaybaha kala duwan ee bulshada hirgelinta nidaamka axsaabta siyaasadeed si ay uga qayb qaataan ama qayb uga noqdaan doorashada dimuqraadiyeysan ee dalka ugana howlgalaan dalka oo dhan markay ku fashilmeen diyaarinta ciidamo amniga suga oo heer federaal iyo heer dowlad goboleed ah awaamirtana ka qaata guddiga madax bannaan ee doorashooyinka qaranka xilliga doorashooyinka lagu jiro sida ku cad qodobka 54aad sharciga doorashooyinka qaranka diyaarinta qoondadii dhaqaale ee lagu qaban lahaa doorashada oo aan lagu soo darin miisaaniyadda 2020 markuu dhageystay golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka warbixintii guddiga madax bannaan doorashooyinka qaranka ay ku caddeeyeen in ay awoodi waayeen soo gudbinta qorshaha qarsoomidda doorashooyinka muddada ku xusan qodobka 13aad faqradda 3aad sharciga doorashooyinka qaranka isla markaasna ku dhawaaqeen inaysan ku qaban karin doorashada waqtigii loogu talagalay sidaa daraaddeed guddoonka golaha shacabka wuxuu cod u qaaday kala noqoshada kalsoonida xukuumadda hadda jirta oo ra'iisul wasaare uu yahay Xasan Khayre baarlamaankana sidaan ayuu codeeyay waxaa ogol u codeeyay 170 xildhibaan waxaa diiday 8 xildhibaan wax ka aamusay mala sidaa daraaddeed madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya sida uu farayo dastuurka kumeel gaarka ah in si degdeg ah u soo magacaaba ra'iisul wasaare iyo xukuumad waddankan gaarsiin karta fulin karta doorasho qof iyo cod ah muddadii loogu talagalay aad iyo aad u mahadsantihiin haddaba baarlamaanka markii natiijada codka gacantaaga ah ay qaadeen ayaa waxaa ka bilowday baarlamaanka gudihiisa buuq iyo sawaxan xoog leh oo markaasi ay kicinayeen xildhibaanada taageersan ra'iisul wasaare Xasan Cali Khayre oo sheegay in qaabka baarlamaanku uu wax u sameeyay ay ahayd mid fawda ah oo markaasi aan u wanaagsaneyn qaranka dalka lama oga cidda rasmiga ah ee gadaal ka riixaysa laakiin waxaa la tuhumayaa in villa Soomaaliya ay arrintan wax ka og tahay maadaama la rabo
in go-aankii dhuusamareeb lagu soo gaaray in dib loo dhigo. waxaa sidoo kale la sheegayaa in gudoomiyaha baarlamanka iyo gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee golaha shacabka ay laftigooda qorsheynayaan in dalka ay markaasi uu markaasi galo muddo kororsi oo hay-adaha dowladda muddo kororsi loo sameeyo. si kastaba ha ahaatee daawadayaal waxaa haatan shir jaraa'id qabtay wasiirka amniga dowladda federaalk ee soomaaliya kaas oo ka hadlay qaabka ay u dhacday codaynta oo isna ah xildhibaan ka tirsan baarlamanka federaalk soomaaliya. waxa uu sheegay in qaabka codaynta u dhacday ay ahayd mid sax aan ahayn. waxaa lagu soo eedeeyey xukuumadda ra-iisul wasaare khayrena ay ahayd wax baalmarsan nidaamka iyo sharciga guud ee dalka. waxaa lasii fahansanaa in shirka dhuusamareeb kadib uu dalka geli doono jahwareer siyaasadeed oo ballaaran oo xagga xukuumadda ku salaysan. waxaana la sheegayaa in baarlamanku uusan marnaba dooneynin heshiiskii ay gaareen madaxda dowladaha federaalka iyo madaxda markaasi waa dowladda federaalka iyo dowladaha xubnaha ka ah. iyagoo taa ka baarandegaya ayayna arrinkan mooshinka u keeneen. markan ajandihii aan dhaqaalaha gudoomiyaha naga adeegay oo alla qadar waxaan sharciga waddanka ama diin aan ka dhicin halkan uu ka sameeyo oo kamid ah iyadoo hal iska geeyo xukuumadda mooshin laga keeno oo wax cadeen lagu helo xukuumadda waa dhacday waxa u fiicnaa gudoomiyaha iyo ku-xigeenkiisa inay gudahooda isku jeestaan waa dhacday marka hadda waxaan qaatay kaamirooyinka ay joogeen ee live la galay xukuumadda waa dhacday dhahay أنا موشي لقى كيني وأذكر وافقسنين أنا لقى دولي وحكومة دمرك اللي أذي إنش دفاع إنه بدميها ما طلع تعالى فرق مكتوب فرح هذا الشيء بدل كل حاجة يعني يجهزوا قومة وضع مركز أنا شينا إن الرسمي سوية هاي الدنيا هاي الدنيا مركومة الصومالية عندها الحي إنه يوجدان أنا مرة وبعد حان أغلين هاي عن الشيء اللي بجاره كل شيء إن دور الشيء بوقت جاي يكون عنده صوت أنا نجيب أمني حان حلا إذا صار روح الصومالية جاره حان إن دور الشيء بوقت جاي إن دور الشيء أنا وقت لو تبغى تزيد فبراير محلنا لندن وادع كرتا في السماء يوحي لندن في السماء ولا آلي كرا وحي تكنيكال بليس الدين ما بين الشرف وما مدني والشرف حاسس الشكل برضه بحلوانا هاي وقت اللي يقول على وحس ولا ما خلص لكن لو بس الاكستيشن على قالها وحس عن كده يدني وحنا شغلنا أمة سماية أنا هاي أنا وزيرنا ومدهمين لكن حرنا وحس حق ومدنا هلا ذلك هو إنه دورشنا دورشنا الشقيرة وقت أو تلنا دورشو آدم الله كما إنه وصل قدر سنة سيد ماتو حكومة أكاديمية سدح بلا أفر بالجوه حكومة للرجل حكومة على صوت إسا كاسوتين من نفس الفكرة وحلاها إيمان كلا كل شيء ما دعي مرة دعي دونتو وأنا ما أسمع السلام عليكم. وأنا وصل إكستيشن وعندنا وضياوة. بدونك برلمان كاوض بدونك برلمان كاوض إكستيشن golaha shacabka wado doonkaana hormuudka ah taasna dhici mayso dalkan doorasho aada waqtiga loogu talagalay doorasho aada doorashada si wada ogol ah dowlad goboleedyada xubinta dowladda federaalka iyo dowladda federaalka waxaa laga rabaa dalkan doorashadu aada marka guddoonku waxaan leeyahay maanta nasiib daro waay wax taariikh baalmadow ka gala waayo in iyadoona hal xildhibaan iyadoona ajendaha uma ku jirin xukuumadda ka noqoshada إذا أنت سهلني يراجع جوك حكومة عقوبة وأحنا لا يعرف فلما أنا كلا زمان ده سواء ما يستهين الحمد لله توجه دي الفرقة السنة كل مالها دور حلقة وعقوبة جد دور الشغل حكومة لا دعوة خمر دي إيش كانوا بيقولوا مركو حنا الدور اللي أنا أقول أنا هاد إنه أركز تصويرات ولا ما هديش واحد في له تصوير مركو أنت مركو أنا القدم هو قال شعير هو قال سنة حي واحد الدور اللي أنت سهل كيو يمك ونصير ضرب الله هو أمد الصومالية إنه يجيبنا مرة إنه مرة وصل على الأمر إن شاء الله بإذن الله الكريم حنكون شغالين من دولة دورش شيء قال لهاد
si ummadda Soomaaliyeed ku soo afar sano kasta waxaa ka dhacay dalka labada kun ilaa hadda afar sano kasta waxaa ka dhacay doorashada dhacaysa biidna kale station ma ogolo xukuumadda marka wasaarada u shaqada waa ku xilaa xukuumadda ma ogolo xukuumadda saacada ma ogolo station doorashada dhacaysa doorashada ku dhacaysa madaxda maamul goboleedyada iyo madaxda qaranka iyo baarlamaanka si kala doorasho hal qof fadhiya gudoomiyaha gudoomiyaha doorasho waxa u baahan waqtiga macad 13 bil sheegay 9 bil wax cad male qalabka diyaar ma ahan marka taas mar aan gudaha sii galo waa maasintiin gudoomiyaha xisbiga wadajir ama hogaamiyaha xisbiga wadajir cabdiraxmaan cabdishakuur warsame ayaa guur sii horeysay saadaaliyey in baarlamaanku ay ra'iisul wasaare xasan cali khayre iyo xukuumaddiisa xilka ka tuuri doonaan taasoo sheegay in jahawareer siyaasadeed ay gelin doonto baarlamaanka waxaa muddaxiloodkooda ka harsan 3 bilood marka baarlamaanka iyadoo waqtigii 3 bilood ka harsan in ay ra'iisul wasaaraha tuuraan ayaa iyada laftigeeda macno kale oo ballaaran samaynaysa taas oo dalka u horseedaysa in doorashadii ay rabeen in maaragtay madaxda maamul goboleedyada ay dalka ka dhacdo aysan ka dhici karin si kastaba ha ahaatee daawadayaal waxa ku soo kordha arrinkan si degdeg ah ayaanu idinla socodsiin doonaa waxaa laga yaabaa in dhinacyada kala duwan ay kasoo falceliyaan oo ay kasoo jawaab bixiyaan la soco isha ku hay wararka kusoo kordha arrintan oo warqaha tv oo idiin soo gudbin doona insha allah kulanti wanaagsan daawadayaal halkaas aad naga daawanaysaan waa janalka warqaha tv war degdeg ah oo iminka ina soo gaaray ayaan idiin soo gudbinaynaa sida aad ku daawateen wararka nisaaka waxaan soo baahinay in xildhibaanada golaha shacabka ee baarlamaanka federaalk soomaaliya ay markaasi qorsheynayaan inay xilka ka xayuubiyaan xukuumadda ra'iisul wasaare xasan cali khayre oo eed culus loo soo jeediyey hadda baarlamaanka soomaaliya ayaa kulan degdeg ah yeeshay waxaana la sheegay in mooshin laga soo gudbiyey markaasi xukuumadda ra'iisul wasaare xasan cali khayre waxaa la sheegay in xildhibaano ka badan 100 xildhibaan ay mooshin degdeg ah kusoo gudbiyeen xukuumadda ra'iisul wasaare xasan cali khayre waxaana kulankii baarlamaanka maanta oo xildhibaano ku dhow 170 xildhibaan ay soo xaadireen waxaa la sheegay in xilkii looga xayuubiyey ra'iisul wasaaraha iyo xukuumaddiisa codka kalsoonidana lagala laabtay gudoomiyaha golaha shacabka ee baarlamaanka federaalk soomaaliya maxamed mursal sheekh cabdiraxmaan oo kulanka shir gudoominayay goor dhowna natiijada ku dhawaaqay ayaa waxa uu sheegay in xildhibaanada golaha shacabka ee baarlamaanka federaalk soomaaliya ay kalsoonidii kala laabteen ra'iisul wasaare xasan cali khayre oo muddo ku dhow 4 sano ahaa ra'iisul wasaaraha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya isaga iyo xukuumaddiisa waxaa lagu eedeeyey in ra'iisul wasaaraha iyo xukuumaddiisa ay ka soo bixi waayeen shaqooyinkii baarlamaanku uu igmaday oo igu horeyso dhammaystirka dastuurka sugidda amniga qaranka daadejinta nidaamka federaalka iyo dalka inuu gaarsiiyo doorasho qof iyo cod ah afartaasi shaqo oo ay baarlamaanku u dirsadeen 4 sano ka hor ama ku dhawaad 4 sano ka hor in markaasi xukuumaddiisu ay ka soo bixi weysay iyo qabitaanka shacabka Soomaaliyeed markuu arkay in xukuumadda ku fashilintay ballanqaadkii ahaa kow diyaarinta hanaan iyo qorshe cad oo lagu gaarayo doorasho qof iyo cod ah sanadku 2020 dhammaystirka federaaleynta xeerarka kala duwan iyo go'aanka qaadashada maqaamka caasimadda ka hor waqtiga doorashada afti u qaadidda iyo meelmarinta dastuurka iyadoo lala tashanayo labada gole ee dowlad goboleedyada iyo qaybaha kala duwan ee bulshada hirgelinta nidaamka axsaabta siyaasadeed si ay uga qayb qaataan ama qayb uga noqdaan doorashada dimuqraadiyeysan ee dalka ugana howlgalaan dalka oo dhan markay ku fashilmeen diyaarinta ciidamo amniga suga oo heer federaal iyo heer dowlad goboleed ah awaamirtana ka qaata guddiga madax bannaan ee doorashooyinka qaranka xilliga doorashooyinka lagu jiro sida ku cad qodobka 54 sharciga doorashooyinka qaranka diyaarinta qoondadii dhaqaale ee lagu qaban lahaa doorashada oo aan lagu soo darin miisaaniyadda 2020 markuu dhageystay golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka ah warbixintii guddiga madax bannaan doorashooyinka qaranka ay ku caddeeyeen in ay awoodi waayeen soo gudbinta qorshaha qabsoomidda
doorashooyinka muddada ku xusan qodobka 13 faqradda 3 sharciga doorashooyinka qaranka isla markaasna ku dhawaaqeen inaysan ku qaban karin doorashada waqtigii loogu talagalay sidaa daraaddeed guddoonka golaha shacabka wuxuu cod u qaaday kala noqoshada kalsoonida xukuumadda hadda jirta oo ra'iisul wasaare uu yahay xasan khayre baarlamaankana sidaa ayuu codeeyey waxaa ogol u codeeyey 170 xildhibaan waxaa diiday 8 xildhibaan wax ka aamusay malaha sidaa daraaddeed madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya sida uu farayo dastuurka kumeel gaarka ah oo in si degdeg ah usoo magacaaba ra'iisul wasaare iyo xukuumad waddankan gaarsiin karta fulin karta doorasho qof iyo cod ah muddadii loogu talagalay aad iyo aad u mahadsantihiin haddaba baarlamaanku markii natiijada codka gacantaaga ah ay qaadeen ayaa waxaa ka bilowday baarlamaanka gudihiisa buuq iyo sawaxan xoog leh oo markaasi ay kicinayeen xildhibaanada taageersan ra'iisul wasaare xasan cali khayre oo sheegay in qaabka baarlamaanku uu wax u sameeyey ay ahayd mid fawdo ah oo markaasi aan u wanaagsanayn qaranka dalka lama oga cidda rasmiga ee gadaal ka riixaysa laakiin waxaa la tuhumayaa in villa soomaaliya ay arrintan wax ka og tahay maadaama la rabo in go-aankii dhuusamareeb lagu soo gaaray in dib loo dhigo waxaa sidoo kale la sheegayaa in guddoomiyaha baarlamaanka iyo guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee golaha shacabka ay laftigooda qorsheynayaan in dalka ay markaasi uu markaasi galo muddo kororsi oo hay-adaha dowladda muddo kororsi loo sameeyo si kastaba ha ahaatee daawadayaal waxaa haatan shir jaraa'id qabtay wasiirka amniga dowladda federaalk ee soomaaliya kaas oo ka hadlay qaabka ay u dhacday codaynta oo isna ah xildhibaan ka tirsan baarlamaanka federaalk soomaaliya waxa uu sheegay in qaabka codaynta u dhacday ay ahayd mid sax aan ahayn waxa lagu soo eedeeyey xukuumadda ra'iisul wasaare khayrena ay ahayd wax baalmarsan nidaamka iyo sharciga guud ee dalka waxaa lasii fahansanaa in shirka dhuusamareeb kadib uu dalka geli doono jahwareer siyaasadeed oo ballaaran oo xagga xukuumadda ku salaysan waxaana la sheegayaa in baarlamanku uusan marnaba doonaynin heshiiskii ay gaareen madaxda dowladaha federaalka iyo madaxda markaasi waa dowladda federaalka iyo dowladaha xubnaha ka ah iyagoo taa ka baarandegaya ayayna arrinkan mooshinka u keeneen markan ajandihii aan dhexgalahada gudoomiyuhu naga adeegay oo alla qadar waxaan sharciga waddanka ama diin aan ka dhicin halkan uu ka sameeyo oo kamid ah iyadoo xalka iska goyo xukuumadda mooshin laga keeno oo wax cadeen lagu heli in xukuumadda waa dhacday waxaa u fiicnaa gudoomiyaha iyo ku-xigeenkiisa inay gudahooda isku jeestaan waa dhacday marka hadda waxaan qaatay kaamarooyinka ay joogeen ee laashka gale xukuumadda waa dhacday dhahay أنا موشي ما يمكن والدستور وافقسنين أنا لقيت جولي وحكومة مركز لا هذا ناس دفاع إنه بدهم ما طلع بتاع عليها قرآن مكتوب في هذا الشهود المحيط يعني يجهزوا حكومة وضع كاس سنة إن الرسمي مسؤولية هاي الدنيا هاي ينكر حكومة الصومالية عندها الحاج إنه يوجدان أنا مرة حكومة حان أنا لين هاي أنا شيء من الوزارة ممكن شيء إن دور الشيء في وقت جاي يكون عنه صوبت أنا وزير أمني حان حلا إذا صار نور الصومالية قال حان إن دور الشيء في وقت جاي يوقف إن دور الشيء أنا وقت لو تلقى سديد فبراير محلنا لندن وادعي كرتا في السماء وحي لندن في السماء ولا آلي كرا وحي تكنيكال بليس الفيديو ما بين الشيخ ما بين الشيخ شريف حاسس الشكل برضه بحلوانا هاي وقت الفيديو قد على وحس أخبار ما خلص لكن لو بس الاكستيشن على قارها وحسن كده يبني وحنا شغالين أمد سماية أنا هاي أنا وزيرنا ومجدنا لكن حرنا وحق مدني حلا ذلك هو إنه دورشنا دورشنا شقينا وقت أو تلنا دورشوا آدم الله كما إنه وصل قدر سنة سيد مانتو حكومة إقداماتها سدح بالأنفر بالجوه حكومة الرد حكومة على صوت إسا كاسفتين من نفس فكرة وحلاها إيمان كلا كل شيء ما دعي مرة دعي دونتو وأنا ما أشتري السلام عليكم وأنا وصلت ستيشن وعندنا وضياء بدونك برلمان شاور بدون برلمان ولا ستيشن
golaha shacabka wado guddoonkaana hormuud ka ah taasna dhici mayso dalkan doorasho aada waqtiga loogu talagalay doorasho ku aada doorashada si wada ogol ah dowlad goboleedyada xubinta dowladda federaalka iyo dowladda federaalka waxaa laga rabaa dalkan doorasho inuu aado marka guddoonku waxaan leeyahay maanta nasiib daro waay wax taariikh baalmadow ka gala waay in ayadoona hal xildhibaan had ayadoona ajendaha uma ku jirin xukuumadda xilka noqoshada iyadoo intaas lahayd inuu yiraahdo guddoonka xukuumadda cod u qaata waa wax lala yaabo xildhibaano kale ay guddoomiye doonto waana mahadsan yihiin waxaan ogaa dowladda haddii la soo saana ku dhamaanaya dowladda halka waxaa ku dhigan doorashooyinka xukuumadda dhacdo kuma dhigan intaan u marka waxaan annaga doodaynay aan dowladdaana ahayd inuu hortiisa toos u yiraahdo waa lama hadis waxaan ku fiilayay inuu toos u yiraahdo marka intaan ahayd marka adiga inaan qaldan ka ogaadaan sharciga aan hoggaansanahay waxaan doodaynay intaasay kiiyuunu yimid waa nasiib daro waxaan leeyahay waa ummadda soomaaliyeed inay dib u noqoto mar rabo in hore loo socdaa loo rabo insha allah biidnillahi kariim waxaan ku shaqaynaa dalkan doorasho soo aadi lahayd si ummadda soomaaliyeed kalsoon afar sano kastana waxaa ka dhaco dalkan labada kun ilaa hadda afar sano kasta doorashaa ka dhaca doorashaa dhacaysa biidnillahi kariim station ma ogola xukuumadda marka wasaaraha mushaahada waa ku xilaa xukuumadda ma ogolo ومن ساعات غير ما أقول لك ستيشن دورشات بعيس دورشات كل عيسو بدأنا ما نقول إذا إمارة القرن البرلمان سكر دورشات حلقة في حلقة بدأ الحين كل بدوميها دورشوا حوالها وقت كده مع سدح يتوب للشركة يسجل بالواحد مال خلق ديار معها مركز مرة نقولهم سيجوا وما سكنين gudoomiyaha xisbiga wadajir ama hogaamiyaha xisbiga wadajir cabdiraxmaan cabdishakuur warsame ayaa guur sii horreysay saadaaliyey in baarlamaanku ay ra-iisul wasaare xasan cali khayre iyo xukuumaddiisa xilka ka tuuri doonaan taas oo sheegay in jahwareer siyaasadeed ay gelin doonto baarlamaanka waxaa muddaxoloodkooda ka harsan 3 bilood marka baarlamaanka iyadoo waqtigii 3 bilood ka harsan yahay in ay ra-iisul wasaaraha tuuraan ayaa iyada laftigeeda macno kale oo ballaaran samaynaysa taas oo dalka u horseedaysa in doorashadii ay rabeen in maaragtay madaxda maamul goboleedyada ay dalka ka dhacdo aysan ka dhici karin si kastaba ha ahaatee daawadayaal waxa ku soo kordha arrinkan si degdeg ah ayaanu idinla socodsiin doonaa waxaa laga yaabaa in dhinacyada kala duwan ay kasoo falceliyaan oo ay kasoo jawaab bixiyaan la soco isha ku hay wararka kusoo kordha arrintan oo warqaha tv idiin soo gudbin doona insha allah kulanti wanaagsan daawadayaal halkaas aad naga daawanaysaan waa janalka warqaha tv war degdeg ah oo iminka ina soo gaaray ayaan idiin soo gudbinaynaa sida aad ku daawateen wararka nisaaka waxaan soo baahinay in xildhibaanada golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka soomaaliya ay markaasi qorsheynayaan inay xilka ka xayuubiyaan xukuumadda ra-iisul wasaare xasan cali khayre oo eed culus loo soo jeediyey hadda baarlamaanka soomaaliya ayaa kulan degdeg ah yeeshay waxaana la sheegay in mooshin laga soo gudbiyey markaasi xukuumadda ra-iisul wasaare xasan cali khayre waxaa la sheegay in xildhibaano ka badan 100 xildhibaan ay mooshin degdeg ah kusoo gudbiyeen xukuumadda ra-iisul wasaare xasan cali khayre waxaana kulankii baarlamaanka maanta oo xildhibaano ku dhow 170 xildhibaan ay soo xaadireen waxaa la sheegay in xilkii looga xayuubiyey ra-iisul wasaaraha iyo xukuumaddiisa codka kalsoonidana lagala laabtay gudoomiyaha golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka soomaaliya maxamed mursal sheekh cabdiraxmaan oo kulanka shir gudoominayay goor dhowna natiijada ku dhawaaqay ayaa waxa uu sheegay in xildhibaanada golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka soomaaliya ay kalsoonidii kala laabteen ra-iisul wasaare xasan cali khayre oo muddo ku dhow 4 sano ahaa ra-iisul wasaaraha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya isaga iyo xukuumaddiisa waxaa lagu eedeeyey in ra-iisul wasaaraha iyo xukuumaddiisa ay ka soo bixi waayeen shaqooyinkii baarlamaanku uu igmaday oo ay ugu horeyso dhammaystirka dastuurka sugidda amniga qaranka daadejinta nidaamka federaalka iyo dalka inuu gaarsiiyo doorasho qof iyo cod ah 4taasi shaqo oo ay baarlamaanku u dirsadeen 4 sano ka hor ama ku dhawaad 4 sano ka hor in markaasi xukuumaddiisu ay ka soo bixi weysay markuu arkay in xukuumadda ku fashilintay ballanqaadkii ahaa kow diyaarinta hanaan
iyo qorshe cad oo lagu gaarayo doorasho qof iyo cod ah sanadku 2020-2021 dhamaystirka federaaleynta xeerarka kala duwan iyo go'aanka qaadashada maqaamka caasimadda ka hor waqtiga doorashada afti u qaadidda iyo meelmarinta dastuurka iyadoo lala tashanayo labada gole ee dowlad goboleedyada iyo qaybaha kala duwan ee bulshada hirgelinta nidaamka axsaabta siyaasadeed si ay uga qayb qaataan ama qayb uga noqdaan doorashada dimuqraadiyeysan ee dalka ugana howlgalaan dalka oo dhan markay ku fashilmeen diyaarinta ciidamo amniga suga oo heer federaal iyo heer dowlad goboleed ah awaamirtana ka qaata guddiga madax bannaan ee doorashooyinka qaranka xilliga doorashooyinka lagu jiro sida ku cad qodobka 54 sharciga doorashooyinka qaranka diyaarinta qoondadii dhaqaale ee lagu qaban lahaa doorashada oo aan lagu soo darin miisaaniyadda 2020 markuu dhageystay golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka ah warbixintii guddiga madax bannaan doorashooyinka qaranka ay ku caddeeyeen in ay awoodi waayeen soo gudbinta qorshaha qabsoomidda doorashooyinka muddada ku xusan qodobka 13 faqradda 3 sharciga doorashooyinka qaranka isla markaasna ku dhawaaqeen inaysan ku qaban karin doorashada waqtigii loogu talagalay sidaa daraaddeed guddoonka golaha shacabka wuxuu cod u qaaday kala noqoshada kalsoonida xukuumadda hadda jirta oo ra'iisul wasaare uu yahay xasan khayre baarlamaankana sidaan ayuu codeeyey waxaa ogol u codeeyey 170 xildhibaan waxaa diiday 8 xildhibaan wax ka aamusay ma laha sidaa daraaddeed madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya sida uu farayo dastuurka kumeel gaarka ah oo in si degdeg ah usoo magacaaba ra'iisul wasaare iyo xukuumad waddankan gaarsiin karta fulin karta doorasho qof iyo cod ah muddadii loogu talagalay aad iyo aad u mahadsantihiin haddaba baarlamaanku markii natiijada codka gacantaaga ah ay qaadeen ayaa waxaa ka bilowday baarlamaanka gudihiisa buuq iyo sawaxan xoog leh oo markaasi ay kicinayeen xildhibaanada taageersan ra'iisul wasaare xasan cali khayre oo sheegay in qaabka baarlamaanku uu wax u sameeyey ay ahayd mid fawdo ah oo markaasi aan u wanaagsanayn qaranka dalka lama oga cidda rasmiga ee gadaal ka riixaysa laakiin waxaa la tuhumayaa in villa soomaaliya ay arrintan wax ka og tahay maadaama la rabo in go'aankii dhuusamareeb lagu soo gaaray in dib loo dhigo waxaa sidoo kale la sheegayaa in guddoomiyaha baarlamaanka iyo guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee golaha shacabka ay laftigooda qorsheynayaan in dalka ay markaasi uu markaasi galo muddo kororsi oo hay-adaha dowladda muddo kororsi loo sameeyo si kastaba ha ahaatee daawadayaal waxaa haatan shir jaraa'id qabtay wasiirka amniga dowladda federaalk ee soomaaliya kaas oo ka hadlay qaabka ay u dhacday codaynta oo isna ah xildhibaan ka tirsan baarlamaanka federaalk soomaaliya waxa uu sheegay in qaabka codaynta u dhacday ay ahayd mid sax aan ahayn waxaa lagu soo eedayay xukuumadda ra'iisul wasaare khayrena ay ahayd wax baalmarsan nidaamka iyo sharciga guud ee dalka waxaa lasii fahansanaa in shirka dhuusamareeb kadib uu dalka geli doono jahwareer siyaasadeed oo ballaaran oo xagga xukuumadda ku salaysan waxaana la sheegayaa in baarlamanku uusan marnaba doonaynin heshiiskii ay gaareen madaxda dowladaha federaalka iyo madaxda markaasi waa dowladda federaalka iyo dowladaha xubnaha ka ah iyagoo taa ka baarandegaya ayayna arrinkan mooshinka u keeneen markan ajandihii aan dhahay gudoomiyuhu naga adeegay oo alla qadar waxaan sharciga waddanka ama diin aan ka dhicin halkan uu ka sameeyo oo kamid ah iyadoo hal iska duuyo xukuumadda mooshin laga keeno oo wax cadeen lagu helo dhinac xukuumadda waa dhacday ha u fiicnaa gudoomiyaha iyo ku-xigeenkiisa inay gudahooda isku jeestaan waa dhacday marka hadda waxaan qaatay kaamirooyinka ay joogeen ee life la galay xukuumadda waa dhacday dhahay أنا موشي ما يمكن وأذكر وافقسنين أنا لقيت جودي وحكومة دمرك اللي هذا ناس دفاع إنه بيجمعها ما طلع بتاعنا فرق مقبول فرق هذا الشغل كل حاجة يعني يجهزوا حكومة وضع كاس أنا سمع إنه مسؤولية هاي
gudoomiyaha iyo gudoomiyaha marka ummadda Soomaaliyeed waxaan dhihi lahay inay u jeedaan waxaan anaga mar walba xukuumad ahaan aan leenahay aan sheegnay wasaaraha uu sheegay in doorashooyinka waqtigeeda ku dhacdo sababtoo anaga wasiir amni ahaan xil ay iga saaran dhulka Soomaaliyeed gaar ahaan in doorashooyinka waqtigooda lagu qabto in doorashooyinka aan waqtiga loogu talagalay 8 February madaxweynaha la doorto waa dhici kartaa farsamo iyo wixii la doono farsamo waa la aadi karaa wixii technical ah bilis iyo mabaadi'da shirafo iyo madaxweynaha Sheekh xasan sheekh labada bixlamaan ahay waqtiga guriga ku dhacdo waxaas waxba laga maqal laakiin laba sano extension al qaadaha waxaan ka dhigay waxaan u shaqeynaa ummadda Soomaaliyeed aan hay anaga wasiirna ummadna laakiin waxaan rabnaa wax xaq ummadna helaa dalka waa inuu doorasho shaqeena waqtiga uu talaba doorasho aad u ilaahay kama inuu wasan ku darsada sida maanta xukuumadda ay ka dhimatay 3 bil 4 bil gudaheed xukuumadda la rido xukuumadda la soo dhisaa taas fuuteedu nifku fikra waxaan leeyahay imaanka ila ku bisho ma dhacayso mana dhici doonto waana maashin assalaamu calaykum wadana wasiir extension ka cidda wadiyaa waa guddoonka baarlamaanka wala extension golaha shacabka wado guddoonkaana hormuud ka ah taasna dhici mayso dalkan doorasho aada waqtiga loogu talagalay doorasho ku aada hadda ma jirtaa doorashada si wada ogol ah waxa la sheegay maxaa ka jira dowlad goboleedyada xubinta dowladda federaalka iyo dowladda federaalka waxaa laga rabaa dalkan doorashadu aada marka guddoonku waxaan leeyahay maanta nasiib daro waa wax taariikh baalmadow ka gala waayo in ayadoona hal xildhibaan ayadoona ajendaha oo ku jiro xukuumadda ka noqoshada ayadoo intaas lahayd inuu yiraahdo guddoonka xukuumadda cod u qaata waa wax lala yaabo xildhibaano kale ay damayn doonto waana mahadsantihiin waxaan ogahay dowladda haddii lasoo darasaana ku dhamaanaya dowladda halka waxaa ku dhigan doorashooyinka xukuumadda dhacdo kuma dhigan intaa numar marka waxaan anaga doodaynay aan dowladana ahayd inuu orkiis toos u yiraahdo waa lama hadis waxaan ku filayay inuu toos u yiraahdo marka intaan ahayd marka aniga inaan qadan ka ogaanaa sharciga hogaansanahay waxaan doodaynay intaasay tiiyuuna yimid waa nasiib daro waxaan leeyahay waa ummadda Soomaaliyeed inay dib u noqoto mar rabo in hore loo socdo la rabo insha Allah biidna kariim waxaan ku shaqeynaa dalka doorashada aad lahayd si ummadda Soomaaliyeed ku soo afar sano kasta waxaa ka dhacay dalkan labada kun ilaa hadda afar sano kasta waxaa ka dhacay doorashada dhacaysa biidna kariim extension ma ogola xukuumadda marada wasaaraha uu shahada waa ku xilaa xukuumadda ogolo ومن ساعة خير ما أقول extension doorashada dhacaysa doorashada ku dhacayso madaxda maamulka goboleedyada iyo madaxda qaranka iyo baarlamaanka si kala doorasho hal qof ka dhici gudoomiyaha gudoomiyaha doorasho waxa u baahan waqtiga ma cad 13 bil sheegay 9 bil wax cad male qalabka diyaar ma ahan marka taas marna gudaha sii galo waa maasintiin gudoomiyaha xisbiga wadajir ama hogaamiyaha xisbiga wadajir Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame ayaa guursi horeysay saadaaliyay in baarlamaanku ay ra'iisul wasaare Xasan Cali Khayre iyo xukuumaddiisa xilka ka tuuri doonaan taas oo sheegay in jahwareer siyaasadeed ay gelin doonto baarlamaanka waxaa muddo xoloodkooda ka harsan 3 bilood marka baarlamaanka iyadoo waqtigu 3 bilood ka harsan in ay ra'iisul wasaaraha tuuraan ayaa iyada laftigeeda macno kale oo ballaaran sameynaysa taas oo dalka u horseedaysa in doorashadii ay rabeen in maaragtay madaxda maamul goboleedyada ay dalka ka dhacdo aysan ka dhici karin si kastaba ha ahaatee daawadayaal waxa ku soo kordha arrinkan si degdeg ah ayaanu idinla socodsiin doonaa